wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland ayaa maanta soo xirtay 16 beri ee ka hortagga shaqaqooyinka loo geysto haweenka Soomaaliyeed iyadoona munaasabada xiritaanka ay ka soo qayb galeen wasiirka haweenka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ururada haweenka ee degmada Kismaayo afhayeenka salaadiinta Jubbaland dhalinyaro iyo marti sharaf kale xafladda xiritaanka 16 beri ee ka hortagga shaqaqooyinka ayaa waxaa looga hadlay dhibaatooyinka loo geysto haweenka iyo sidii xal looga gaari lahaa ugu horeyn waxaa madasha hadal ka jeediyay afhayeenka salaadiinta Jubbaland ugaas Cumar Xiiri isagoona sheegay in hadda haweenku ay aad u dadaalayaan kaalin weynna ay ka qaadanayaan wacyigelinta ku aadan dhibaatooyinka loo geysto haweenka aad bay u dadaalahayaan nooc kasta oo la fiiriyo xagga wadaninimada horumarinta wacyigelinta iyo guubaabada iyo waxqabadka aad bay u dheereynayaan gudoomiyaha haweenka ee gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Kateela ayaa iyadana haweenka ka soo qayb galay kulanka fartay in ay wax ka qabtaan shaqaqooyinka soo laablaabta in aan wax ka qabanno barnaamijyada soo noqonaya shaqaqooyinka in aan wax ka qabanno aan noqono dad anaga wax tarsan kara wax qabsan kara iska celin kara rag aan kula dagaalami karno dhibaatada loo geysanayo qodobadii aan uga hortagay waxaan sameyn lahayn inay haweenku wax bartaan aqoon yeeshaan diinta bartaan wasiirka wasaaradda haweenka Jubbaland Marwa Cadar Ismaaciil Juraati ayaa haweenka ku bogaadisay kuna amaantay sida ay uga qayb qaadanayaan wacyigelinta iyo horumarinta nadaafadda iyo ganacsiga iyo isku xirka haweenka iyadoona tilmaamtay in ay guteen haweenku waajibaadkii saarnaa waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo oon ku darsado gabdhaha reer Jubbaland ee 24 saac u taagan sida ay uga soo dhalaali lahaayeen hawshooda inaan halkaan ammaan iyo bogaadin uga jeediyo wax walba haday dhahaan dhanka amniga haday noqoto dhanka nadaafadda haday noqoto wacyigelinta isku xirka gabdhaha haday noqoto ganacsiga wax walba oo ka jira magaalada sida ay tahay ee haweenkii gabdhihii reer Jubbaland uga soo baxeen qaasatan degmada Kismaayo oo hadda ku sugannahay aniga ammaan baan idin hayaa muxuu ahaayay halkiina ka sii wada Nuur Bashiir Cali Hirshabelle TV magaalada Kismaayo.